السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalahayga ani waaye walaashiina kaltuuma cooking waani salaamay meel kastoo adduunka joogtaan kusoo dhawaada janalkayga gacmo furan kusoo dhawaada walaalahayga maanta waxaan ii wadaa hilib ari oo lug waaye marka waxaan rabaa foorno ku sameysto waa kaasa 3 saacadood aan rabaa inaan foornada kusoo dubo waxaan hilibka aad inuu iga bislaadaan rabaa insha Allah inta waxaan ku haystaa barbarooni basbaas basal yaanyadan midna ciirin waaye midna gaduud waaye iyo liin dhanaan marka intaas isku shiida waxaan ka dhiga rabaa soostii la isticmaali lahaay hadda waxaan u soo laabtay hilibkeyga marka hilibka waxaan u baahanahay saasa midida ku yeelaa inta waxaan ku haystaa wax yar oo subag waaye wax kasta aan ku darayna inaan la socodsiinaa insha Allah hadda marka subagaan ku bilaabaa inta waxaan ku haystaa walaalahayga basbaas gaduud waaye marka ana mara waxa waajiyaashin aad iiga bataan qiyaas la ku darsanaa wax yar qaanta xataa iska dhaaf buuxeeda ma dhamo dhinacan ku inta saamari inta waxa ku haystaa babrika waaye barbarooni shiidan waaye wax yar aan ku daraa iyadana inta waxaan ku haystaa sanjabiil waaye oo shiidan oo budo qaleel markaas wax yar aan ku shubanaa inta waxaan ku haystaa xawaaji mix waaye inta waxaan ku haystaa filfil madow waaye wax yar aan isticmaalaa hadda waxaan ku darsadaa tuun tana tuuntii qaleelka ahayd waa shiidneed idan wax yar la darsanaa inta waxaan ku haystaa cusbo waaye marka qaando waa la qaandada ma isticmaalayo wax yar aan isticmaalaa inta waxaan ku haystaa oregano ama sactar wax yar aan ku darsanaa sina marka aan marinaa saasaan isku gelinaa marka xabad tuuna soo qaadana gudahaan ka gelinaa wax yar oo waxaan gelinaa baqdoonis ama kabsar caleen midka haysatid geli walaalahayga saxankeyga waa kana saxanka foornada loogu talagalay waaye hadda waxaan soo qaaday hilibkii waa kana salka hoos waxaan u dhigaa basal carafaan rabaa inaan carfo halkaas gabalkan kale lana inta ku haystaa xataa mireedka ma bixinin wax dib ma lahan marka waxay ka dhigay ciyowna bislaynaysaa aad u caraf badnaana haddana waxaan inta ku haystaa hal xabo yaanyo waan soo jeexjeexay oo nooceedan saas u yahay midabkeeda daarta gaduud nooca aragtid waxaan soo qaatay xaashada loo isticmaalo furanka rootiga marka hadda waxaan u baahanahay اليوم بدي أسمع لها meelay haweenka galaysa malahan kulli saan u xirxiran yahay marka waa kaasa walaalahayga waxaan rabaa foornada inaan geliyo 250 ay joogtaa weena ii shidan tahay marka hadda kaamirada ma u wareejin karo walaalahayga raal noqda marka waxaan rabaa markaan geliyo markaan soo bixinayo 2 saac kadib aan isku soo laabaneynaa walaalahayga waa kana 2 saac kadib hadda waan fiirineynaa qaabka uu noqday
marka walaalahay waa kana hilibkeeni waa ujeedaan marka waa soo guduudinayna insha allah asoo saan feedana ku celinaa front waa kaasaa walaalahayga markaan kasoo bixi mar labaad ayaa la soconaysa insha allah walaalahayga waa kana waa soo laabtay hal saac kadib waa kana saasaan kasoo dhigay kooda dhinacana guduudiyey haddana dhinacana sii guduudiyey hilibkan saasuu yahay marka waa kaas u baahanahay inaan soo diyaarsado cuntadii aan ku cuni lahaay marka waa kaasa walaalahayga waa kana qaabkan aan soo diyaarsaday marka bariis caadi waa bariiskeenii Soomaali basmatiga ahaa aan soo kariyay waaye hilibkaana bariiska ku dhex karsanaay marka waa kaasa walaalahayga bataati jibiskii wixii oo soo diyaarsaday intan waxaa ku jirta yaanyadii wixii aan soo shiiday waaye barbaroonigii basbaaskii oo isku soo wada shiiday waa liin ku soo daray iyo cusbo walaalahayga maanta waxaan videogan usoo duubay waxay tahay walaalo badan oo waxa soo weydiiyeen kaltuuma YouTube ma ka baxday maxaa kugu dhacay markaan YouTube ma ka bixin walaalahayga YouTube aan ku jiraa intaan noolahay insha Allah hadan xanuun iyo wajac yar iska jira alxamdulillah hadaan fiicanahay walaalahayga waa kaasa ila socdahay walaalaha igu xiran oo aadka aan jeclahay waana mahadsantihiin su'aalaha soo weydiiseen marka waa kaasa walaalahayga qeyraan iyo rajayna videoga intaas oo ku eg yahay daawashada videoga waa ku mahadsantihiin السلام عليكم.